toddobaad kadib markii uu yimid wakhtigii ilmaha la gudi lahaa waxaa loo baxsheeyey magaca ciise oo yuusuf iyo maryana waxay ilmaha geeyeen yeruusaalem si ay rabbiga u guddoonsiiyaan macbuudka dhexdiisa waxaa joogay nin wanaagsan oo rabbiga u go'ay kaasoo uu ruuxa quduusku ugu ballan qaaday inaannu dhiman doonin ilaa uu ka arko masiixa magaciisuna waxa uu ahaa simcoon rabbiyow iminka addoonkaagu nabad ha ku tago sida ereygaaga quduuska ah u dhigayo oo indhahayguna waxay arkeen badbaadintaada ilmahan waxaad doortay ilaah oo labadiinnuba barakaysnaada oo markay iyagu dhammaysteen dhammaan shaqooyinkoodii sida uu dhigayay sharciga muuse waxay ka tegeen yeruusaalem oo ku laabteen nasaret markii ciise 12 jirka ahaa ayaa yuusuf iyo maryan u kaxeeyeen yeruusaalem ciddii kormaridda laakiin markii ay ku laabanayeen guriga iyagoo u malaynaya in uu la socdo ayaa ciise dib uga haray waxay ku laabteen magaaladii iyagoo isaga raadinaya oo maalintii saddexaad ayay ka heleen macbuudka isaga oo la fadhiya macallimiinta iyo odayaasha ayaa ilmahan dhalay su'aalahan weydiinaya wuxuu ka yimid nasaret waxaana u malaynay inuu annaga na raacay fadlan u cafi kuwa isaga maqlay waa yaabeen wiilkaygiiyo maxaa sidan ugu gashay aabbahayo aniguba waan ku raadinaynay sidee ku ahaatay inaad raadisaan miyaydinaan ogayn inay qasabtahay inaan qabto shaqada aabbahay oo wuxuu u soo raacay nasaret halkaas oo uu ku koray xigmad iyo itaal iyo asaxaan uu ka helay ilaah iyo dadkaba